واتما قبل الليلة هذا وردة رجع دوني يا إنا عنده وردة مرة بتاع دقة حاجة يسي قبل دوني سإني وردة نقطين دقة حاجة يسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله أحبكم في الله مال كستؤد الدنيا أد كتشوكتان بإيجا قدوم السلام آد أقيم بضن إيا مهد عيرين إسلا سعوتا عاوة أما قلبت وحان شعلها إنا إذن لو ذاقو حوار أما الضوض نحمرتي أنيقو أبو طلحة إيا قبل اللي يلاهدو وردة وردة أظهرين نين كذا أسو أغاتين تلماميهيسا إيا صفات كيسا أيا وحندون يا إنان مقابلو إنان ما أنت الله يشو قبل اللي يلاهدو وردة مركا كوباد هالكا وحانوغو التهريين يا تهنيد يا بوغادين وردة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير هنيئا لك وهنيئا لكما مركا كوبات بوغادين تا يا تهنيد دا نغا قدوما حدي أنها بلشدة الصومالية نغا قدوما أولا مركا كوبات سود وردة مركا لبات وطما قبل الليلة هذا وردة وانو قرني وردة مقعيضة إن وردة الليلة هذا بمعنى وأبح أبح وعرف بدن يهي أبح وإدقون يهي أبح وفرحة بدن يهي aad baad ugu mahadsantahay inaad magacaagii aad noo soo gudbisay waliba macnihiisii aad noo soo gudbisay gabadh walba waxay leedahay warda ayaan ahay gabadha la sheegaya waa aniga wiilashina waa ay ku wareereen kadib bay wardo lisaanu xaaliha waxay ka dhigan tahay inay igu tiri أبو طلحة ميادا كالفورين كتابك قرآن كأه ميادا أقرين صحيح البخاري إيا الصحيحين كي السننك ميادا أقرين مسجاهل البات كتاهي دين إسلامك وحيتري وحانا هي مسؤول هذا الكبين وضع نبينا صلى الله عليه وسلم ميادا كأقرين حديثة ونبي قوليه والمرأة راعية في بيت زوجها haweenaydu ayadu waa mas'uuliyad sidoo ninkuba mas'uul u yahay ayadana mas'uul u tahay qiyaamada waa la weydiin waqifuhum innahum mas'uulun dadka ayay ku jirtaa ee miyaadan arkin way ka sii socoto waxay tiri ana daaciya anu waxaan ahay gabar daaciyada oo waxaan ka dhuxul qaataa hooyadeen khadiija waxaan ahay gabadhii ugu horeysay ee qof dumar ah oo laa ilaaha ila allah muhammadur rasuulullaahi qirtay waxay tiri waxaan ahay gabadhii nabi muxamed dacwada ku kaalmaynaysay ee xakiimada ahayd ee zammiluuni markii la yidhi iduuduuba kadibna talada siisay gabadhaas ayaan ahay idan waa daaciya ma aha daacida shaytaan حمالة الحطب مئه داعية إلى الله إذن قبرنا ورداء وقبر داعية ده دين تبرتي حضرنا في ذنيسة كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وحيتري وحانا تقية نقية طاهرة قبر عبسبضا أو طاهرة أو نقي أيانه النظيفة فالصالحات قبر صالحة بانهي قانتات قبر صوم بضن بانهي بيلاد قبر صالحة أو ونكسن أو هدنا الصوم بضن بانهي فالصالحات قانتات رقا دون يا إنا عنده ورد مرة بتاع دقا هاقا يسي قبر دون يسا إنا وردن لغتين دقا هاقا يسي فالصالحات
qaanitaatun waxaan ahay gabadh wanaagsan oo saalixada oo soom badan oo khushuuc badan xaafidaad gabadh waxaan ahay xubinkeeda taranka ilaalisa xumaantana ka ilaalisa xaafidaatun lilghaybi bimaa xafida allah tilmaanta qur-aanka iyo axaadiidta ay gabadhaasi doonayso inaanu ka baranno waxaa ka mid ah waxay tidhi waxaan ahay tayiba alطayibaatu lilطayibiin ma waxaad la yaaban tihiin inaan zawj u noqday ninka aad soo tilmaantay ee muxaadaradii hore kaga soo hadashay inaan zawj u noqday miyaad ila yaabtay ha ila yaabin tayibaad baan ahay waa tayib ase waxaa u haboon tayiba alطayibaatu lilطayibiina wاlطayibuuna lilطayibaat alkhabiihaatu lilkhabiihiin labada xunxun ayagaa isleh labada akhlaaqda xunxun ayagaa isleh tayibaadkuna ayagaa isleh alطayibaatu lilطayibiin aniga tayib un baan leehay bay leedahay maxaa yeele tayibaadka ayaan ka mid ahay waxay tidhi saajidaan ahay wejiga ayaan dhulka dhigaa taarikad mi ihi wejiga ayaan dhulka dhigaa yaa maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin maryamoy usjudii lirabbiki rabbigaa u sujuud oo rabbigaa u rukuuc kuwa rukuucana macooda noqo kuwaa weeye kuwa aad qiyaamo lagula soo kulmin faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wاsidiiqiina wاshuhadaai wاsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa dalika alfadl min allah idan maryamo wejigay dhulka dhigtaa taariku salaadad ma aha macquul ma aha inaad dhahdo wardaan ahay haddana taariku salaad baan ahay macquul ma aha hiya tusalli وهي تصوم وهي تزكي وتحج كل إنتاصلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مطيعة مده جانسان زوج كذا كذب بيسان هاي بيلاده زوج كيغا مقرب أرضه زوج كيغا إنها عن روفك ما طفو زوج كيغو ومدحوينه يجي زوج كيغو وشرف تيدي zawjkaygu waa caruurtayda aabbahood zawjkayga waa midkaan jirhkaygoo dhan siiyey tusay waxuusan aabbahay arkin walaalkayna arkin abtigayna arkin qofkaan u baneeyey waan ateecayaa waana maqlayaa idaa sallat ilmar'atu khamsaha shanteeda hadday gabadhu tukato wa saamat shahrahaa bisha ramadaanna ay soonto waxafidad farjaha xubinkeeda tarankana xumaanta ay ka ilaaliso maxaa la raaciyey wa ataacat zawjaha ani halkaasaad iga helaysaa bay leedahay booskaa iga raadi aqri bukhaari bay ileedahay gabadhu muslim aqri bay ileedahay axaadiista aqri bay rabtaa inay dhahdo maxaa kugu dhacay ood ileedahay waa tuba warda wa ataacat zawjaha ninkaygaan ka dambeeyaa bay leedahay ninkaygaan maqlaa waxaan macsi ahayn asagaan ku ateecaa wa ataacat zawjaha mutiica ayaan ahay bay leedahay saabira waxay leedahay gabadh adkaysata oo sabar badan baan ahay nacam oo xaggee sabarkaagu ku geeyey sabarkaygu wuxuu i gaadhsiiyey akhri axaadiidta wiilkaygii oo mayda inaan laba arrimood sameeyey zawjkaygii inaan soo dhoweeyey u muusooday oon u qoslay cunto macaan u sameeyey aniguna isu qurxiyey kadibna wiilkaygii oo mayd oo halkaa yaalla aan xidhiir goboleed samaynay yaa awoodi kara arrinkaa anaa sameeyey bay leedahay warda anaa sameeyey leedahay sabarkaygu halkaasuu gaadhay qodobka labaad xikmadaydu xaggay gaadhay waxaan ka fikiray wiilkan iima soo noqon haye e waa intaasood caawa uur kala qaade e ka faa'iidayso xikma iyo sabar anay igu dhan tahay bay leedahay halkaa iga raadiyo buugta reer galbeedka kama helayside buugta nebi maxamed ku noqo sala allah alay wasalam meeshaasaa aniga layga helaa bay leedahay waxaan ahay bay leedahay gabadh qanaaco badan oo imra'atu saciid binu caamir aljumaxi asagoo filistiin oday ka ah
ayaa cumar bin khataab yidhi hala ii soo qoro fuqarada, asagii baa lagu soo daray. xoogaa lacaguu u soo dhiibayo mar alla markii lacagta loo keenay ayuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. laba su-aalood baan weydiiyey tiri, ma madaxweynihii muslimiinta la dilay oo cumara wax ka weyn baa caawa gurigeenna soo galay buu yidhi. maya, cafwa wuxuu yidhi maya. ma muslimiintii baa dagaal galo oo lagaga adkaaday? maya. oo maxaa dhacay? wuxuu yidhi wax ka weyn baa soo galay. adduunyaa gurigeenna soo gashay, laba dhibaatayna leedahay. anigii adigana haddaan kala dhimanaynaa, aakhiradana way naga fasahaadinaysaa. jidhkayga ragga ninka iqaba unbaa arki kara, ninka iqaba unbaa arki kara. dadka maanta isku qaawinaya social media, haddana doonaya dhahaya wardaan nahay. si fiican ha u dhegaysteen. waxay leedahay jidhkayga waan qariya. yaa ayuha nabiy qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabibihin. nabiyow dumarkaaga iyo gabdhahaaga iyo muslimaadka waxaad ku dhahdaa jidhkiina qariya, cawradiina qarsada. sidaa ku dhabaa nabiga lagu yidhi. idan waxay leedahay anigu jidhkayga waan qarsadaa, jidhkayga waan xijaabtaa oo waan is astura. qalbigana waa tan hore oga soo sheekayno, waa naqiya nadiif awey, saalixa lilah, saalixa caabida saajida. waa inagii hore aan usoo sheegnay. daakira waxay leedahay carabkan ilaahay ka xusaa, ma xanta dadka, hilibka dadka ma cuno. waxay leedahay ilaahay baan xusaa. wاdhaakiriina allaha kahiira wاdhaakiraat ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina ila aakhirka aaya. wاdhaakiriina allaha kahiira wاdhaakiraat acadda allahu lahum makfiratan waajra cadiiman. dadka loo dembi dhaafay saan ugu darmado ayaan carabkayga ilaaliyaa, xanta iyo cayda ayaan ka ilaaliyaa ayay leedahay. waxaan ahay badbaadiyaha, gabadha badbaadisay sulxulxudaybiya markuu nabigu yidhi sal ll ly slam timaha xiirta dadka cumrada loo diiday oo saxaabadu ay ka cagajiideen, gabadhii furaha furtay baan ahay bay leedahay. axaadiista aqri, siirada aqri yay mar walba igu waaninaysaa. faqiiha baan ahay, gabadha cilmiga laga qaato. hooyadeen caaisha, soo ummadan cilmigeeda oo dhan iyo hooyadeen caaisha haddii lasbarbar dhigo, hooyadeen caaisha ayaa cilmi badan radia allahu tacaala canha wa ardaaha. intaa waxay dheer murabbiya, waxaan ahay midda barbaarisa. adduunka nin meel gaadhay ma jiro, anaa soo saaray bay leedahay. mujaahid kasta anaa soo saaray, oo caalim kasta anaa soo saaray, oo taajir kasta anaa soo saaray. dadkan oo dhan baa igu abtirsada ee miyaadan ogeyn. waxay ku soo gebagabaysay warkeeda 8 qodob. 4 qodob waxay leedahay anigu haddaan ruwaydo ahay kuma dhaqmo, waana iska ilaaliyaa. gabar kastoo isheeganaysana oo dariiqayga ku faanaysana ha iska ilaaliso. 4 ka midana waan sameeyaa, waxaana ku gaadhaa guul iyo gobannimo. ninkaygana waa iskugu soo dhowaanaa. bal aan dardaaranka ruwaydo dhagaysano. 8 qodob, 4 meela iyo 4 meela. 4ta ay leedahay waan iska ilaaliyaa. waxay leedahay anigu iltaag mi ihi. maxay oola jeedaa iltaag mi ihi? dariskayga ma fiiriyo. waxa aniga ilaahay i siiyey ee uu ii qoray ee uu ii qadaray baan alxamdu lilaahi dhahaa. haddaba iltaag mi ihi. qodobka labaad waxay tidhi sidoo kale anigu aftaag mi ihi. maxay oola jeedaa aftaag mi ihi? iskama carooda bay leedahay, bilaashna kuma ooyo, carab lulatana melihi, oo ma caytamo mana aflagaadoodo. waana ceeb aada u weyn bay leedahay arrinkaa. aftaag mi ihi. labaad haysaa. qodobka 3aad waxay tidhi anigu riime mi ihi. maxay oola jeedaa riimo?
الله دبرك إكلا قوان الله أفتا حلونيس حالي ما سيحنن إن لها إسكما قبانن إن يربان سيحضي دمرك على الكبدن أنوغو مئه بيلاده إيه شيء الشدى بدن بريا بدن إيا بكتب بدن بوالس كل نعا واتي الصومالي هوري أتيلي إنما أشكو بثي إلى الله أرن كيغا إلهي بانو شيك تابي لذا سبحانه وتعالى بني آدم وحبك كيغا مربو حالا إلانا سيحانين إلان سوچي دي أفرتا قضب كوودن بيا أنوغو ميرتم مئه بيليضحي وميرتم محاضة هاي وبدا بورصدا أن قربك كدقيني حفلد والبا أما هلقا عسوما أيا أما يلقا عسومنا ويتاقنت المهي عرورتي أضيقو مركي كلا داريران ويباحيسا داريس كي سو كلا تيرينيسا يا والله يا حالي أضيقي هذه اسخلافين واسكو كعسيين يا للا قورسدي أو مصيرسا وإلى رضا حافظة مركو نينكو سي وبحنا ويسوق لي مركو سوق لنا ويسيبه أنا قتاميه بيلاده وريكتداسي أفرتا من مئه بيلاده هذا رويدا هاي نينكا يقال أساس هشيس كنا هاي أو يقول دورته بيلاده أفرتا كلنا وأفر أنا قصة معي بيلاده هو قيمة بدل هربه قاري أفرتا محيين odayga ama xaajiga ama xabiibkayga ama saaxiibkayga waxaan u ilaaliyaa ishiisaan u ilaaliyaa waan soo qurxiyaa oo gurigan qurxiyaa oo anigoo cibaadaysan buu ishiisu ku dhacdaa anigoo qur'aan aqrin bay ishiisu ku dhacdaa anigoo sooman bay ishiisu ku dhacdaa anigoo hadallo wanaagsan waalidkay la hadlaya oo baarinimo sameynaya ilmahayga u ducaynaya wax alla wixii indhihiisu ay ku farxaan oo dhan ayaan sameeyaa bay leedahay inta aan awoodo waa qodobka labaad oo ku guuleystay waxa weeye sankiisaan ilaaliyaa wax alla wuxuu sankiisu dhibsanayo oo nadaafada ama aniga nadaafada jirkayga ha noqoto ama nadaafada guriga qaybihiisa kala duwan ha noqdee sankiisa wuxuu dhibsanayo ayaan ka ilaaliyaa bay leedahay waana ku guuleystay midka saddexaad waxay tiri dhagihiisaan ilaaliyaa wax dhagihiisu ay dhibsanayaan oo ama cay ah ama aflagaada ah ama caruurta ah ama habaar ah oo aan caruurta wax ka sheegayo ama asaga aan wax ka sheegayay taana waan ka ilaaliyaa dhagihiisa waxaan wanaag ahayn ma maqashiye bay leedahay waan ku guuleystay bay leedahay ruwayda arkaas qodobka ugu dambeeya waxay tiri calooshiisaan ilaaliyaa maxaa yeelay waa riti aan rarano oo annaga noo maqan oo noo soo dhaamiya oo noo soo shaqeeya oo noo soo dhidida sadaraadeed markuu guriga imaado waa nafaqaystaa bay leedahay nafaqada waan ku guulaystay laba dhinacba kow anigana way i anfacday qolka nabadda labo asagina way anfacday oo nin xoog leh oo shaqayn haya ayuu noqday nin tabar daran oo hirayo jaranjarta markuu soo karo asaga dhanba neef dhabaya kama dhigin bay leedahay nin cunto wanaagsan oo caafimaad la siiyaa bay leedahay idan calooshiisana waan ka dadaalaa idan gabagabada iyo gunaanadku ruwayda waxayna leedahay afartaa horena iska ilaali afartan dambana samee waad ku guulaysanaysaa warda aad baad u mahadsan tahay muqaabalada aadna la yeelatay waana kaaga mahad celinaynaa risaaladaaduna waa waadix qur-aankay ku caddahay sunnada nabiga ku caddahay sala allahu calayhi wasalama caaqil kasta oo doonaya in uu nolol fiican gaadhana wadadaadaas waa u bogay mujrim iyo munaafiqna waxbaba ha weydiinin hada wabillahi towfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.